waxa loogu baaqayaa inay ka baxaan caruurta iyo mataqaana haweenka magaalada Boorama shacabka magaalada Boorama waxa loogu baaqayaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh ciidamo hubeysan oo jabhada Galbeed soo galay ka baxa magaalada shacabku ha ka baxaan caruurta iyo dumarku magaalada ha iskaga baxaan caruurta iyo dumarku magaalada ha iskaga baxaan caruurta iyo dumarka magaalada ha laga baxo dadka magaalada ka dhex mudaharaadaya oo magaalada iskaga baxa leefka shargareeya ilmaadareyaal jabhada hubeysan oo Galbeed soo galay ka dhex baxa jabhada madaniga soo galay shacabka waxaan leeyahay ka baxa magaalada shacabka Galbeed haweenka iyo caruurta maatida ka baxa waxa goobaha caafimaadka tagay dhiig shubaya maahine iskaga baxa magaalada ka baxa dadyoga isku soo ururayo iskaga baxa jabhada hubeysan baa soo galay oo Galbeed waa la isfarasaaraya iskaga baxa magaalada iskaga baxa dhamaan haweenka iyo caruurta dadka maatida waxa la farayaa inay goobaha ay joogan ee iskugu soo ururayaan ay iskaga tagaan dadka shacabka waxa la farayaa inay iskaga baxaan goobaha ay joogan waxa soo galay jabhada madaniga oo Galbeed iskaga baxa meesha waa la isku farasaaraya shacabka waxaan leeyahay iskaga baxa shacabka Galbeed dumarka caruurta maatida waxaan leenahay iskaga baxa meesha iskaga baxa caruurta iyo hooyooyinka ka qaada magaalada ka baxa magaalada ha laga baxo meesha jabhada soo galay jabhada madaniga oo Galbeed soo galay xaaladii hore waa iska bedeshay meesha waa la isku soo hub qaatay ka baxan leeyahay dadweynaha Boorama ku sugan ee isku soo ururaya ee suuqyada dhex jooga ha iskaga baxaan shacabku waxaan farayaa dhamaan qof kasta haweena inay yaro caruura ka baxa magaalada Faaruqiya magaalada waa la isku farasaaraya Faaruqiya dhamaantiinba Faaruqiya magaalada Faaruqiya waa isku soo urursantiin kala dareera waxaan farayaa dadweynaha iyo shacabka shucuubtoodu kacsan tahay inta dhimata Allah u naxariisto ee mujaahiday ee mataqaana shahiiday inta dhaawacana Allah u booqdayo laakiin waxa idin farayaa caruurta iyo haweenka magaalada isku soo buuqayo iskaga baxa ciidamo madaniga soo galay waa la isku farasaaraya jabhada Galbeed soo galay iskaga baxa gurmadku waa soo baxay gurmadku waa idin soo gaaray ka baxa dadyoga isku imanaya magaalada hareeraha isku soo imanaya ee santarka suuqayga isku imanaya waxa laga codsanayaa inay ka kala tagaan magaalada inay ka kala tagaan oo ifraaqeeyaan shargaray walaal muuqaalka baahiye idinko maasan ka baxaan idin leenahay magaalada waa la soo galay jabhadii Galbeed soo galay waa la isku farasaaraya tan looma kala tagayo sida ay caruurtaas ay mataqaana ugu shahiideen ay umadu xuquuqdooda iyo xaqooga ay u helayaan shacabka isku soo ururayo ka kala dareera u baneey ciidamada mataqaana madaniga iyo argagixisada is arkaya waxaan leeyahay dadweynaha Boorama ha ka baxaan beel kastana ha diyaar galowdo oo ciidankeeda ha keento beel walba baa la isku keenaya beel walba oo Galbeed kamida ha keenan ciidamadooda ha keenan inamadooda waa la soo galay shacabka isku soo ururaya ee mudaharaadada wada ee caruurta ee maatida ee hooyooyinka waxaanu ka dalbanaynaa inay ka kala tagaan magaalada inay faaruqiyaan suuqyada ka baxa magaalada isku soo urursan meesha waa la isku farasaaraya hub culus baa soo galay waxaan idin farayaa inaad ka baxdaan beel kastoo Galbeed waxa laga rabaa inay mataqaana ciidankeeda ay nin walba inta keeni karta aad keento nin walba halka keeni karta aad keento goobaha tagaysaan waad garanaysaan ilaa idima tilmaamayo goobaha tagaysaan la idima tilmaamayo laakiin beel kastoo Galbeed waxa laga rabaa inay ciidamadeeda ay keento jabhadaha hadda soo galay meesha waa la isku farasaaraya caruuraha isku soo ururaya dumarka iyo maatida waxaanu ka codsanaynaa inay suuqyada noo faaruqiyaan waxaanu ka codsanaynaa inay wadooyinka noo faaruqiyaan ma rabno inay shacabkaygu ku dhintaan dagaalkan anagu aan wadno ma rabno nimanka mujrimiinta in anagoo mujrimiinta dilayna inay mataqaana caruurahayagu nagaga dhintaan magaalada Faaruqiya haweenka iyo caruurta waxaan leeyahay mudaharaadada magaalada ka dhex wada xaaladii waa isbedeshay gurmadkii waa soo dhacay intaas oo dhan waxaan ku jirnay abaabul iyo gurmad waana la soo gaaray ka baxa marka dadka isku soo ururaya waxaan farayaa inay ka baxaan dadka mudaharaadada dhigaya ee shacabka ee maatida ee hooyooyinka ee islaamaha dhamaantiin iskaga baxa ilmaadeerayaan iskaga baxa idin leeyahay iskaga baxa suuqyada Faaruqiya wadooyinka Faaruqiya argagixisada iyo mujaahidiinta xaq u dirka is arkaya ilmaadeerayaan iskaga baxa tan laguma kala dambaynayo haddaan Soomaali ka sheekin waxa halka ka dhaca waxaan idin sheegnaa beena
haddaanu 30 kun oo Itoobiyana ka soo xidhi weyno aqoonta iyo cilmiga aanu leenahay annaga waa naga xaraan maanta dhammaan Gadarbuus waxaan farayaa inaad ka baxdaan reer walba inuu cidiisa keeno la rabaa nin walba inuu cidiisa keeno jabhada madaniga soo baxay waxaan leenahay dadyowga dhiigaga loo baahan yahay isbitaalada geeya goobaha la idinka baahan yahay isbitaalada geeya laakiin mudaharaadada magaalada aad ka dhex wadaan joojiya oo u baneeya ciidamada soo socda u baneeya kana baxa ilmaha reer ka baxa dhalinyarta gaarsiiye fariimaha ka baxa qof kasto wax garada qof kasto aqli la waa fahmi kara wax meesha ka dhacaya xasuuq baa ka socda xasuuqana ragii ka jawaabay waa joogan gurmadkii loo baahnaa waa soo galay reer kasto Gadarbuusiya waxa laga rabaa wareena ninkaaga iyo ciidankaaga ma taqaana aad keento caaw nin kasto Gadarbuusiya xaalad waa isbedeshay wax xasilooni la yiraahdo meesha ka soo socda oo ka dhacaya ma jirto dadweynaha waxaan ka codsanayaa inay ka baxaan shacabka mudaharaadaya ee taayirada gubaya ee ma taqaana iskugu soo baxay iskoosyada magaalada u baneeya ciidamada madaniga ee jabhadaha Gadarbuusiga u baneeya wadooyinka iyo inay idinka ma taqaana dhibaato dhexdiina idinka soo gaadhin laba meelood baa isku dagaalaya dhexdiina ha ku burburina waxaan leeyahay dadweynaha iyo shacabka ka codsanaya inay faaruqiyaan wadooyinka ay u baneeyaan dadka sida hadda iskugu urursantihiin dhibaatooyin badan baa ka imanaya faaruqiya idin leeyahay wadooyinka magaalada joojiya mudaharaadada wadaan maatidii caruurtana ka saara magaalada maatidii caruurta magaalada hal laga saaro Gadarbuusow gurmadku waa soo baxay waa la soo galay ka saara caruuraha magaalada iyo maatida hal laga saaro mudaharaadada wadaana joojiya ka saara caruuraha iyo magaalada farintan idin faraya wata hadii tan xaqdir ba ku dhimanaya tan ninkii lahaaba u jahaadaya tan ninkii lahaaba difaacanaya cirdigiina iyo sharaftiina iyo karaamadiina iyo dadnimadiina difaacanaysan meeshan jabhada argagixisaaba inagu soo duushay caruurteeni ku soo duushay maalkeeni ku soo duushay cirdigeeni ku soo duushay sharafteeni ku soo duushay intii hore waxay haysteen waa ciyaal dhagax tuureehay laakiin hadda jabhadihii Gadarbuusiga hubaysnaaba soo galaya ka baxa idin leeyahay caaw waa la isku farasaaraya magaalada Boorama magaalay noqonaysaa ama anaga xoreysanayna ama iyaga xoreysanaya ee dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay ka baxaan shacabka iyo caruurta hal laga saaro magaalada walaalo qof kasto ay maqlaya ilmahaaga iyo caruurtaada ka saar magaalada Boorama santarka magaalada caruurtaad ku haysaan isku soo buuqay qof kasto la xiriir walaalka qof kasto la xiriir waalidka hal laga saaro xaaladu faraha way ka baxaysaa xogahan idin ogahay xaaladu faraha way ka baxaysaa jabhadaha waysan baa soo galaya artillery culus baa la isku isticmaali doonaa baasukayaal baa la isku isticmaali doonaa xaaladu faraha way ka baxaysaa shacabka waxaan leeyahay ka dareera magaalada rag iyo rag baa magaalada isku arkayee faaruqiya caruurta taga goobaha caafimaadka ee dhiigga la idinka baahan yahay dhiigga shuba tani waa alxamdulillah weeyaan intii shahiiday way shahiiday gobonnimaad u shahiideen kumanaan baa mataqaanaa intiina shahiiday ay mataqaanaa dhiigoogu dhulka ugu daadan doonaa waxaan leeyahay ka dareera magaalada taayirada gubasaan joojiya mudaharaadada joojiya istajiya kana baxa warka alleerka idin soo gaarsiinaya waa alleerka reer kasto Gadarbuusiyana ciidankiisa laga rabaa farintan diray wata dhammaan 13 aqal ee Gadarbuusina farinta waxa laga rabaa ciidankooga inay mataqaana ay soo diyaariyaan caaw la joogo nin walba ciidamada goobaha lagaga baahan yahay ay joogaan jabhadaha madaniga ee Gadarbuusiga ge fariimaha idin faraya waa inta khayr badan baa idin rajeynaya wixii alleera iyo akhbaar cusub mataqaana waa ku soo laaban doona qaata digniinta ka baxa caruurta